bilowga filimka waxaana la tusayaa oday Murali lagu magacaabo isla mar ahaantaasna saldhigga booliska ayuu ku sugnaay wuxuuna rabay madaxda dalka inuu dacweeyo asigoona ku eedeynayo biladiisa in ay weli ka maqan tahay booliskiina waxa ay weydiinayaan waxa uu bilada ku falayo asigoo da'dan jiro isla markaasna waxa uu booliskii ku dhahayaa waxaan rabaa in aan tuuladeeda dhiso haddii aan biladeeda gacanta ku dhigano waa huwaal waa aan dhisayaa tuuladeyda maxaa yeelay waxaa jirta tuulada aan deganahay tuulo ku dhagan isla mar ahaantaasna dadkii degnaayeen mid ka mid ah waa uu guuleystay bilad ayuuna ku guuleystay asigoo biladii wata ayuuna tuulada ku soo laabtay isla mar ahaantaasna tuuladiisii waa uu dhistay anigana sidaasoo kale ayaan rabaa tuuladeeda inaan u dhiso booliskiina waa ay ku qoslayaan hadalkiisa ayay la yaabanaayeen isla mar ahaantaasna waxa ay weydiinayaan waxa uu ku guuleystay isla markaasna Murali waxa uu bilaabayaa inuu qisadiisa bilow ilaa dhammaad uu aaga sheekeeyo dhowr sano ayaana gadaal u laabanaynaa maalin maalmaha ka mid ahna waxaan arkaynaa Murali oo aad u yar iyo walaalkiisa ka weyn isla markaas ayagana waxa ay ku sugnaayeen bosteejada tuuladooda halkaasna waxa lagu soo dhaweynayay nin ku soo guuleystay bilad qaali ah isla mar ahaantaasna dadka oo dhan waa ay u sacbinayeen kor ayayna u qaadayaan waa ayna ku faanayeen Muralina halkaas goobjoog ayuu ku ahay indhihiisa ayuuna ku arkayay Muralina walaalkiisa ayuu ku leeyahay anigana sidan oo kale ayaa noqon doonaa dhammaan dadka tuulada ku nool aniga ayay ii soo bixi doonaan waa ayna ii sacabtumi doonaan asigana waa ay ka gooneed midaasi isla mar ahaantaasna waxa uu imaanayaa goob legdan lagu barto macallinkii joogay ayuuna dhahayaa aniga legdan ma i bari kartaa dhammaanna macallinka iyo ardaydiisa waa ay ku qoslayaan asigana aad iyo aad ayuu u yaraay waxa uuna leeyahay sooweyna waa inaad markaas ii imaadaa balse Murali ayaa ku adkeysanayo isla mar ahaantaasna sida uu u tuugayay macallinkii ugu dambeyntii waa uu ka ogolaanayaa in uu legdanka baro maalinkaasi wixii ka dambeeyeyna Murali asigoo yar ayuu dadaalayay iskuulka xataana waa uu ka soo dhuuman jiray waxa uuna rabay in uu legdamaa weyn uu noqdo daqiiqadii iyo sekinkana waa ay ordayeen Maxamuud Mursalna scriptigan 30 minute ayuu ku qoray anigan 20 minute ayaan ku codeeyay Muralina waa uu weynaaday isla mar ahaantaasna waxa uu rabay in uu legdan ka qayb galo hase ahaatee aabihiisa midaasi waa uu ka diidayaa asagan waa uu baryayay waxa uuna leeyahay maanta keli waa inaad i fasaxdaa dadka tuulada joogaan oo dhan waa ay caayaan jandu ayayna igu wacan waxayna ii moodaan in aan dabaal ahay maantana Janis ayaan haystaa oo aan isku bari karo ee ha iga berdaraynin aab waa inaad i fasaxdaa aabihiisana hal sharuud ayuu ku xirayaa sharuudaasi oo ahayd iskuulka ayaan tegaynaa natiijadaada ayaan soo fiirinaynaa haddii aad baastidna waa aad ka qayb galaysaa asigana midaasi waa uu ku ogolaanayaa isla mar ahaantaasna iskuulka ayay soo aadayaan isla markaasna iskuulka marka ay imaadaan aabihiisa ilida ayuu u istaagayaa isaga ayuuna soo fiiri leeyahay Muralina natiijadiisa ayuu fiirsanayaa isla mar ahaantaasna waxa uu arkayaa in uu dhacay meeshan waa uu iskaaga dhuumanayaa markuu tagayna meesha legdanka lagu qabanayay dhammaan dadkii joogeen waa ay ku qoslayeen waxa ayna dhahayeen jandu champion ayaa imaaday asigana run ahaantii midaasi aad ayuu aagu xumaay maantana waxa uu rabay in uu isbaro dhammaantooda ciyaartan waa ay bilaabanaysaa isla markaasna Murali xirfad cusub ayuu la soo baxayaa dhammaan inta meesha joogtayna waa ay ka yaawayaan ayagana waa ay yeesi jireen uma aysanna malaynin in ay xirfadan ku duugan tahay isla mar ahaantaasna waa uu ka guuleysanayaa ninka uu la legdamayay tiimkii laga guuleystay ayaa qaraarayaan isla markaasna meesha fooda ayay ka bilaabayaan waxa ayna rabeen Murali in ay dilaan asagana midaasi waa uu ku fahmay waa uuna ka ordayaa ayagana waa ay bursanayaan ugu dambeyntiisa wadada tareenka ayuu imaanayaa tareen socda ayuuna arkayaa isla mar ahaantaasna waa uu ka raacayaa mid ka mid ah dadkii tareenka saarnaayeen ayayna isbaranayaan isla mar ahaantaasna Murali magaalada ayuu tagayaa saaxiibkiisa ayuuna u sheegayaa waxa uuna leeyahay aniga waxaan jeclahay inaan guuleysto isla mar ahaantaasna waxaan rabaa inaan ciyaaraha olombikada aan ka qayb galo waxa uuna leeyahay tuuladeedii anigoo guuleystay oo bilad wata ayaan rabaa inaan dib ugu laabto ee sideen aaga qayb galaa ciyaaraha olombikada saaxiibkiisana waa uu ku taageerayaa hamigiisa waxa uuna leeyahay marka hore waa inaad ciidamada ka mid noqotaa markaasna waa ay ku fududaanaysaa inaad ka qayb gasho ciyaaraha olombikada waxa uuna leeyahay aniga xataa waa aan jeclahay inaan ka qayb galo ciyaaraha olombikada haddana ciidanka ayaan ku biiri rabaa adigana midaasi waa aan ka caawin karaa haddii aad u baahan tahay in ciidamada inaad ku biirto hadda waad i soo raaci kartaa Muralina run ahaantii midaasi Janis ayuu u arkayaa isla markiina waa uu ku ogolaanayaa run ahaantiina xilliyada tababarka waxa uu ahaa mid dadaala asagan waxa uu ka mid noqonayaa dadkii la qaatay muddo kadibna waxa uu baranayaa Tiger Cali kaas oo garab ku siinayo Murali in uu boxing ka barto halkaasna dadaalkiisa ayuu ku sii laba jibaarayaa dadka ayuuna isbarayaa ugu dambeyntiin waxa uu noqonayaa mid boxingka ku fiican dowladdan waxa ay u dooranaysaa inuu asiga ku matalo olombikada asigana midaasi aad ayuu ugu farxayaa sanadkan waxa uu ku beegnay 1964 sanadkaasna ciyaaraha olombikada waxa lagu qabanayay magaalada Tokyo ee dalkaas iyo Japan Muralina ciyaarihiisii ugu horeeyay waxa uu noqonayaa mid ku guuleysta
waqtigan waa uu socday ciyaarahan waa ay isdhaafayeen. Muralin waxa uu ahaa mid dadaala. Kulankiisii xigan waxaa ka hor imaanayo ciyaaryahan Afrikaan ah oo dalka Uganda ka soo jeedo kaasi oo aad u halis badan. Albitarkiina ciyaarta bilaabisteeda ayuu ku dhaqaaqayaa. Muralin waxa uu ahaa mid si wanaagsan u ciyaara. Ugu dambeyntiina hal fir ayaa Muralin wejiga laga helaya, midaasina jahada ayay ka dhuminaysaa. Meesha ayuuna ku soo xayaa, dib dambana uma soo kacayo, isla mar ahaantaasna waa laga badinayaa ciyaaraha Olombikadaas 1964 sidaas ayuu aaga soo harayaa. aad ayuuna aaganaya jabaya. bilooyin aad u tiro badan ayaana ka soo wareeganayaan. sanadka marka uu ku beegnaa 1965 asigoo magaalada Kashmir jooga ayaa warqad loo soo diraya, waxaana ku qorneed inuu ka soo qaybgali doono ciyaaraha Olombikada ee sanadkan. Muralin dib ayuu ugu soo laabanaya goobtiisii, waxa uu u imaanaya macalinkiisii Tiger Ali. waxa uuna leeyahay miyay macquul tahay inaad dib macalin iigu noqoto si aan u noqdo xidiga Asia ka soo dhex muuqday ee ku guuleystay ciyaaraha Olombikada sanadkaani. balse intay wada hadlayeen ayaa weerar lagu soo qaadaya, halkaasna ciidamo aad u tiro badan ayaa ku geeriyoonayaan. Muralin halkaas dhaawac ayaa ka soo gaarayo, 9 xabadood ayaana ku dhacayso. 4 sano dhalatay oo dhamaatay ayuuna koomo ku jiray. markii uu ka soo kacono waxa uu ogaanayaa in uusan socon karin, waxaana loo sheegayaa in ay xabad jirkiisa ku jirto ilaa xabadaasi laga soo bixiyan uusan socon karin. isla markaasna dhakhtare aad perfect u ah ayaa gacanta ku qabanayaan, waa ayna ku dadaalayaan. qalin ayaana lagu sameynayaa. isagana waxa uu ahaa mid suuxsan. marka uu soo kacona waxa uu arkayaa familkiisa oo la joogaan. waxa uuna isku dayayaa in uu kaco, hase ahaatee weli sidiisa ayuu ahaay, umana suurtagalayso in uu lugihiisa dhaqaajiyo. ugu dambeyntiina goobtii waa ay iskaga soo tagayaan ayagoo niyo jabsan. dhammaan askartii Murali ay ka saayeen iyo intii meesha ku sugneedba marka ay maqlaan Murali arrintiisa waa ay isku hoynayeen. askariga uu sheekada u wadayna ugu dambeyntii maxkamadda ayaa laga soo wacaya. Murali iyo wiilkiisana goobtii waa ay iskaga soo tagayaan. wiilka yarna aabihiisa Murali ayuu ka codsanayaa in uu sheekadii u sii dhammaystiro. sheekadii ayuuna halkii ka sii wadaya. waxa uuna leeyahay habeenada ka mid ah anigoo isbitaalka ku jiro ayaan khamri cabay, isla markaasna waxaan bilaabay in aan lugaheygii ka shaqaysiin karo. waxaana go'aansaday in aan riyadeedii rumeeyo. waxaana waqti xaadirkaasi bilaabay in aan dabaasha barto. macalinkiisii Tiger Ali ayaana ku soo booqanayo isbitaalka. waxa uuna leeyahay riyadaada waa inaad ka dhabaysaa oo wax walba aad u suubisaa sida aad aaga dhaweyn lahayd. Muralina dadaal badan ayuu samaynayaa ilaa uu ka noqdo mid dabaasha aad ugu fiican. dhinaca kale askariga journalista ayuu Murali u soo diraya si qasadiisa joornaalka loogu soo daawaco, xaqiisana loogu dhiciyo. balse Murali midaasi waa uu diidaya. waxa uuna dhahayaa hadda wadada tuuladeeda dad ii dhisan ayaa helay, wax kalena uma baahni. wariyahana sibir ayuu ka qaadayaa Murali, waxa uuna u geenayaa marwadu u shaqaynayay. ayadan waxa ay leedahay hadda asiga bilada uma baahno. waxa uuna leeyahay mayo uma baahno asiga hadda wax bilad ah, balse haweeneydii sidaasi aagama harayso, isla mar ahaantaasna feelashiisii ayay raadinaysaa. waxayna ogaanaysaa ciyaarihii Olombikada ee sanadkii 1972 lagu qabanayay magaalada Munich ee dalka Jarmalka ee dadka lixaadkooda u dhamaystirneen ay ka soo qaybgalayeen dowladda Indiya in ay u ogolaatay Murali in uu ka qayb galo. laakiin qalalaaso ka dhacay magaaladaasi Munich awgeeda ayaa ciyaartii loo baajiyay. Berlin ayaana loo wareejiyay. halkaasi ayuuna Murali kaga qayb galay ciyaartii Olombikada ee 1972 dalkiisa Indiyana guul weyn ayuu u soo hooyay. Muralina riyadiisii waa ay u rumowday. biladii dahabka uu ku riyoon jiray hamigiisana ahayd waa uu ku guuleystay. biladiisana waa uu soo qaadanaya. dhammaan shacabkiisana asiga ayay u taagnaayeen, waa ayna u sacabtumayeen. habeenaydiina markay ogaatay Murali qisadiisa oo dhan joornaalkeeda ayay ku soo daawacaysaa. Muralina qisadiisa dhammaan dalka Indiya ayay ku baahaysaa. shacabkan waa ay u kacayaan, asiga ayayna xuquuq u raadinayeen. ugu dambeyntiina madaxweynaha dalka Indiya ayaa u imaanaya. waxa uuna leeyahay bilad ayaa lagu guddoonsiin doonaa, biladaasi oo Badmashiri lagu magacaabo. midaasina bilada uu asiga raadinayay waa ay ka qaalisaneed, waa ayna ka sharaf badneed, xitaa waa ay ka ixtiraam badneyd. asigana run ahaantii aad ayuu ugu faraxsanaay. filimkeenan waxa uu ku dhammaanayaa Murali dhammaan tuuladii inta ku sugneed oo asiga busteejada ku soo dhaweynayaan. biladiisana gacanta ayuu ku watay, riyadiisana waa ay u rumowday. filimkan waxaa idin qoray Maxamuud Mursal, waxaana idin codeeyey idinna editgareeyey Mohas waana aniga. filimkan waxaa lagu magacaabaa Jandu Champion. intaan kaga kulmeynana muuqaalka xiga. nabadgelyo.